kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV ku soo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwooda ugu doorka roona waxaa kamid ah xubnaha mucaaradka oo soo jira awgeed madaxweyne Farmaajo uga dalbaday in doorashadan uusan isu soo sharixin dawladda Qatar oo faahfaahin ka bixisay ujeedkii ay kala hayd heshiiskii ay kala dhaxdhigtay madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya xog ku saabsan madaxweyne qoorqoor oo sabab amni awgeed uga baaqday inuu tago magaalada Dhuusamareeb midowga musharaxiinta oo ka hadlay ergeyga cusub ee midowga Afrika uu Soomaaliya u soo magacaabay iyagoo la taliye sare oo ka tirsan midowga Afrika dacwad ka gudbiyay intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu doorka roona warkayaga haatan ku soo dhawaada iyagoo intii hore ka faahfaahsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh like sar sidoo kalena videoga asxaabtaada u share garay mahadsanid xubnaha mucaaradka ayaa soo jira awgeed madaxweyne Farmaajo uga dalbaday in doorashadan uusan is soo sharixin xubno ka tirsan mucaaradka dawladda ka soo horjeeda ayaa waxa ay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan talada dalka ay ka dalbadeen inuusan is soo sharixin doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo haatan isla markaana madaxweynuhu uu noqonayo in mar kale uu noqdo musharax u taagan xilka isagoo haatan waqtigu uu ka dhamaaday taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Sambalulsho ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in haatan madaxweyne Farmaajo sabab jira awgeed uusan noqonin musharax u taagan mar kale qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sababta ku sheegay in haatan aysan u wanaagsaneyn in madaxweyne Farmaajo uu soo sharaxo ay tahay in haddii madaxweyne Farmaajo uu noqdo musharax hadiiba la sii ogaanayo doorashada natiijadeeda isla markaana uu ku soo baxayo waxa uu tilmaamay in natiijada doorashada oo la sii ogaado guusha cid leh aysan ahayn wax doorasho ah isla markaana uu macna darro ka dhigayo madaxweyne Farmaajo haddii uu musharax noqdo waxaana xubnaha mucaaradku ay ka dalbadeen iyo Sambalulsho oo ka tirsanba in madaxweyne Farmaajo ay ka codsanayaan in doorashadan uusan is soo sharixin isla markaana uu noqon tartame u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaana ay kula dardaarmeen madaxweynaha in doorashadan isagu uu qabto isla markaana doorashooyinka kale ee soo socda uu musharax noqdo hadalka Sambalulsho ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan la filayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqo musharaxnimadiisa isla markaana si aad ay uga cabsi qabaan xubnaha midowga musharaxiinta in doorashada dalka ka dhacaysa uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku shubto isla markaana uu ku soo baxo mar kale inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee hogaaminaya afarta kale ee sano ee soo socota iyadoo ay xusid mudan tahay in xubnaha mucaaradka iyo musharaxiintuba ay madaxweynaha ka hor istaageen in 2 sano uu ku darsado si doorasho qof iyo cod dalka looga qabto ay xubnaha musharaxiintu qabaan dhaliil ku aadan in madaxweynuhu uu doorashada maamuli karo isla markaana ay wax walba dhici karaan oo madaxweynuhu uu ku shuban karo taasina walwalka ay ka qabaan waxa ay ka dalbadeen madaxweynaha inuusan noqonin musharax u taagan qabashada xilka waxaana ay tilmaameen in madaxweynuhu isku ekeysiyay in doorashada uu wareejiyay balse ay muuqato in si hoose uu maamulayo taasina ay keeni karto in doorashada iyo nuuceeduba uu noqdo mid aan doorasho u ekayn iyadoona ay rajo wanaagsan ka muujiyeen in doorashadu ay noqon doonto mid la isku calul furan yahay haddii madaxweyne Farmaajo uusan musharax noqonin laakiin waxa ay ka baqayaan in madaxweyne Farmaajo uu lug ku yeesho maamulka doorashada isla markaana uu isla dhinaca kalena uu waji kale ku noqdo musharax dawladda dalka Qatar ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedkii ay kala hayd inay heshiisiiso madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Kenya dawladda wadanka Qatar oo war ka soo saartay warar xan ah oo saacadihii la soo dhaafay isla dhaxmaray isla markaana ku aadanaa in dawladda dalka Qatar ay ujeed gaar ah kala hayd heshiiska ay kala dhaxdhigtay Kenya iyo Soomaaliya ayaa ay si rasmi ah uga hadashay isla markaana ay war ka soo saartay waxaana dhambaal ay soo gaarsiisay madaxweynayaasha dawladaha federaalka Kenya iyo Soomaaliya waxaana ay uga hadashay arrimo ku saabsan heshiiska ay kala dhaxdhigtay labada dawladood dawladda Qatar ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u faahfaahisay dhambaal ay toddobaadkii hore soo gaarsiisay madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dalka Carbeed ee Qatar ayaa sharaxay fariinta uu madaxweyne Farmaajo ka gudbiyay ergeyga gaarka ah ee dawladda Qatar Mutlaq Al-Qahtani waxaana Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani oo u waramay telefishinka fadhigiisu yahay magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxa uu daa ku rogay in madaxweyne Farmaajo
uu ku booriyay in uu xal ka gaaro arrimaha cakiran ee ka taagan gudaha Soomaaliya isla markaana uu xalliyo xasradaha ka taagan Muqdisho. Fariinta amiirka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo gudbiyay waxaa diiradda lagu saaray qaboojinta xiisadda ka taagan gudaha Soomaaliya iyo in heshiis laga gaaro arrimaha khilaafaadka doorashooyinka ee la filayo inay dalka ka dhacaan. Waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu dhiirigeliyay soo celinta xiriirka dowladda Kenya iyo hoos u dhigidda xiisaddii kala dhaxaysay saamileyda siyaasadeed ee ka jirta gudaha Soomaaliya. sidoo kale Al-Qaxtaani ayaa toddobaadkii hore waxa uu socdaal bilowgiisii ku yimid deegaanada Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa iyadoo sidoo kale muddo 2 cisho ah oo uu joogay magaalada Muqdisho uu kulamo la qaatay diblomaasiyiin iyo sidoo kale xubno ka tirsan mucaaradka dowladda Soomaaliya. Al-Qaxtaani ayaana intaas kadib u sii gudbay gudaha wadanka Kenya waxaana uu shir la qaatay madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta kaas oo uu gudbiyay dhambaal uu kaga siday amiirka dalka Qatar isla markaana war-saxaafadeed ahaan u qornaa. dhambaalka ku socday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu gudbiyay ergeyga sare ee Al-Qaxtaani waxaa lagu taageerayaa dadaalada socda ee Soomaaliya iyo soo celinta xiriirka dalalka dariska ah. waxa yar kadib kulankii Al-Qaxtaani iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore dhamaadkiisa maalintii Khamiista ahayd waxa ay shaacisay inay soo celisay xiriirka diblomaasiyadeed ee la lahayd Kenya kadib dhexdhexaadin ay sameysay dowladda wadanka Qatar ayaa 4 sano ee la soo dhaafay waxa ay taageero dheeri ah u muujinaysay madaxweynaha haatan talada dalka Soomaaliya haya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ay saameyn weyn ku yeelatay go'aanada ay gaarayaan filla Soomaaliya oo dalka looga arrimiyo iyadoo la tilmaamay in isku xiraha dowladda Qatar iyo madaxweyne Farmaajo inuu ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. xog la helayo ayaa tilmaamaysa in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu sababo amni awgeed iyo baqdin uga baaqday safar uu ku tagi lahaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda u ah maamulka Galmudug. xogta la helayo ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor saraakiisha dhanka amniga u qaabilsan uu ku wareejiyay in uusan ka degi karin magaalada Dhuusamareeb sababo jira awgeed isla markaana uu ka baqdin qaba in duqeyn la beegsado xilliga saqda dhaxa ee habeenkii ah isagoo aan diyaar garow gelin isla markaana safar ku jira. xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dhowr jeer waxa ay ku dhawaad hoobiyaal fara badan oo tobaneeyo gaaraya xilliyada habeenkii ku garaacay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb iyo nawaaxigiisa waxaana wali jirta cabsi xoogan oo laga qabo in mar kale duqeymo noocaasi ah la beegsado garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb. warar lagu kalsoon yahay sidoo kale tilmaamaya in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay suurtagal tahay in safar dhulka uu ku tago magaalada Dhuusamareeb isla markaana uu ka dego garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud si loo ilaaliyo badqabka madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa dhawaan magaalada Muqdisho soo gaaray waxaana in muddo ay ku sugnaayeen ay ka qayb qaateen in xal laga gaaro arrimaha cakiran ee dalka ka taagnaa gaar ahaanna in la xalliyo xiisadii ka dhex taagneyd xubnaha mucaaradka dowladda iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya iyo in magaalada Muqdisho laga qaado ciidamadii ka soo horjeeday dowladda waxaana ay qayb weyn ka qaateen in dalka lagu celiyo in doorasho ay ka dhacdo taas oo ah mid dadban. sidoo kale waxaa jirtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab bishii November la soo dhaafay sanadkii hore ay duqeymo la beegsadeen diyaarad uu la socday madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaas oo ka kacay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb iyadoo wax khasaare ay soo gaareen. tan iyo markaasi madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa la tilmaamay in cabsi xoogan uu ka qabay arrinta ku aadan duqeymaha la beegsanayo garoonka magaalada Dhuusamareeb isagoo haatan si weyn uga fakaraya inuu ka dego garoonka magaalada Dhuusamareeb cabsi awgeedna kaga baaqsaday. ugu dambeyntiina midowga musharaxiinta ayaa ka hadlay ergeyga midowga Afrika u soo magacaabay Soomaaliya waxaana ay sidoo kale warqad qoraal ah oo ay midowga Afrika u gudbiyeen ay dacwad kaga gudbiyeen la taliye sare oo ka tirsan midowga Afrika. xubnaha midowga musharaxiinta ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay si aad ah u soo dhaweeyeen ururka midowga Afrika iyo ergeyga cusub ee Soomaaliya u soo magacaabay oo ah madaxweynihii hore dalka Ghana John Dramani Mahama kaas oo noqonaya qaabilsanaha midowga Afrika ee Soomaaliya isla markaana dhexdhexaadinaya xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo khilaafaadka ka taagan arrimaha doorashooyinka. waxaan u mahad celinaynaa midowga Afrika taageerada joogtada ah ee ay siinayaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadaalada dhismaha nabadeed ee ka socda gudaha dalkeena hooyo Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen midowga musharaxiinta isla markaana ay uga hadlayeen ergeyga cusub ee midowga Afrika u soo magacaabay Soomaaliya. waxaan ku rajaynayaa in ergeyga cusub
uu sida ugu dhaqsiyaha badan uu la qabsado isla markaana uu dhexdhexaadin ka sameeyo arrimaha ku saabsan khilaafaadka arrimaha doorashooyinka iyo siyaasiyiinta iska soo horjeeda ee isku haya arrimaha doorashooyinka. midowga musharaxiinta qoraalkooda ayaana sidoo kale waxa ay dacwad kaga gudbiyeen la taliye sare oo midowga Afrika ka tirsan iyagoo sheegay in ninkan uu yahay nin ka shaqeynaya kala furfuridda arrimaha Soomaaliya isla markaana ay u baahan yihiin in midowga Afrika ninkani ay ka fiirsadaan. madaxweynaha guddiga midowga Afrika Musa Faki Maxamed ayaa isagu waxa uu habeen ka hor u soo magacaabay madaxweynihii hore ee dalka Ghana inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika ee dhexdhexaadinta ismariwaaga arrimaha doorashada Soomaaliya ka shaqeynaya. gudaana daawadayaal warkeed kala socoteen Warshada TV wanaagsan nabadgelyo. Warshada TV